وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل. قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل. تالله ليس لها مثيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وانساب مثل السلسبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرستي أنكو قادنيني قصص في القرآن الكريم، qisooyin qur'aanka ku soo orooray ilaahay uu inooga warramay subxaanahu wa tacaala. maanta qisadan aan soo qaadanayno waa qisad cajiiba. ilaahay wuxuu inooga warramayaa, inooga qisoonayaa, inoo sheegayaa nin warkii. ninkaasi wuxuu ahaa nin wanaagsan ayuu ahaa, nin cibaado badan ayuu ahaa, nin wuxuu ahaa caalim culummadii reer banu israa'iil ka mida. wuxuu gaadhay darajada la yidhaahdo axbaaru banu israa'iil ayuu gaadhay, waa culummadooda waaweyn. ninkaa waxaa arday u ahaa 12,000 oo arday ayaa wax ka barata. waa nin caalimah oo lagu yaqaano adduunka zaahid buu ku ahaa, qalbigiisa ma raacin. ninkaasi waxaa lagu yaqaanay alla ka cabsi badan, nin dhowrsi badan ayuu ahaa. intaa waxaa u raacsanaa nin wuxuu ahaa mustajaabu dacwa. ilaahay waxa uu weydiisto ilaahay uu ka aqbalayay. ninkaasi intaa waxaa u raacsanaa sir gaara ayuu yaqaanay. ilaahay waxa uu baray sirta magiciisa weyn ee gaarka ah, uu qofku ilaahay uu waafajiyo ee ku barya ilaahay uu ka aqbalo. ismullaahi alacdam ayuu yaqaanay, uu ku ducaysan jiray. duca alla ducada uu ku ducaysanayo ilaahay wuu aqbalaa. wax alla wuxuu ilaahay weydiisanayo ilaahay wuu siiyaa. intaasi weliba ilaahay wuxuu u raaciyey wanaag badan, khayr badan buu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala. ilaahay baa u doortay diintiis. dad badan buu ilaahay ka fadilay, wanaag badan ayuu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala. ninkani wuxuu noolaa zamankii nebi muuse calayhi salaatu wassalaam ayuu noolaa. nebi muuse ayaa baray kitaabka towraad. ninka magiciisa waxaa la yidhaahdaa balcaam binu baacuura. balcaam binu baacuura ayaa la yidhaahdaa. ninkaasi waxa uu ku dhashay, uu ku noolaa dhulkaa ardushaam la yidhaahdo, dhulkaa barakaysnaa, dhulkaa ardul ambiyaa ayaa la yidhaahdaa. meesha baytulmaqdis ay ku taalo, filistiin iyo hareeraheega ayuu ku noolaa. qoomka uu ka dhashay waxaa la oran jiray banu kancaan ayaa la yidhaahdaa. banu kancaan asalkoogu waxay ka soo jeedaan reer ciraaq ayay ahaayeen.
meesha la yidhaahdo baabil ayay ka yimaadeen way soo hijroodeen dhulkan shaam ayay u soo hijroodeen nebi muuse calayhi salaatu wassalaam oo qoomkiisii reer banu israa'iil wada ayaa tagay dhulka iyo shaam kancaaniyiintu markay arkeen nebi muuse oo reer banu israa'iil wada waxay u maleeyeen in dhulka laga saarayo oo dhulkoogii hore lagu celinayo ciraaq sida awgeed way cabsadeen way argagaxeen waxay is yidhaahdeen waan ili kala kaxaynayaa waxay u ordeen ninkan aan ka hadlayno ayay u ordeen balcaam ibnu baacuura ayay u ordeen waxay ku yidhaahdeen nabadbaadi waa kan muuse dhulkii shaam soo galay waa kan reer banu israa'iil wata wuxuu doonayaa inuu na saaro inuu na musaafiriyo oo ciraaq nagu celiyo sidaa awgeed maanta noo gurmo adigu maxaa yeelay waan kala tegaynaa waan kala baahaynaa waan googo'aynaa bilaa dawlad baan noqonaynaa bilaa watan ayaan noqonaynaa quwaddaydii baa lumi awood yeelani mayno qoomkaagii baan nahay annagaa naga dhalatay nin yahow maanta waa maalinkaan kuu dhigannay ee noo gurmo na badbaadi waxna la qabo ayay yidhaahdeen maanta ayaana laga saarin dhulkayagan meeshan shaam waan ku kornay waan ku barbaarnay waan ku badannay quwad baan ku yeelannay ayaana laga saarin maanta waa kan muuse ciidankiisii buu wataa muuse waa nin xoog badan ciidankiisuna waa ciidan fara badan lays hortaagi kari maayo la dagaalami kari mayno sidaa awgeed noo gurmo ayay ku yidhaahdeen maxaa nii qabtaa waxaa tahay nin ducadiisa la aqbalo ilaahay ducadiisa u aqbalo ilaahay bari habaar muuse iyo asxaabtiisa la socota ee reer banu israa'iila ayay ku yidhaahdeen waxa uu ku yidhi waylakum hoogiinna ba'ah warbiyaadaheen ma nebigii ilaahay oy malaa'igtii la socoto oy dadkii mu'miniintii la socdaan ayaad doonaysaan inaan habaaro miyaad waalateen maxaa inii dhinnaaday sidee tihiin miyaynu ogayn inaan muslim ahay haddii sidaa aan yeelo oon habaaro waxaad ogaataan adduunkaygii iyo aakhiradaydii waan waayey waan silcay dhibaata igu dhici waan gaaloobay ma nin nebigii ilaahay habaaray oo ducadiisii la aqbalay maxaa u hadhay bay ku yidhaahdeen ayuu ku yidhi dhinac walbay kaga yimaadeen way ka codsadeen way ku celceliyeen intaba wuu diiday kamay quusan xoolo badan baan ku siinaynaa bay yidhaahdeen hanti badan baan ku siinaynaa darajo ayaan ku siinaynaa madax baan noo noqon bay yidhaahdeen dumar badan ayaan ku siin waad guursan waxay ku yidhaahdeen waxaanu kaa dhigi mas-uulkayaga adigaana maamuli hoggaanka adaanu kuu dhiiban dhinacii adduunkaa lagaga yimid ninkii wuxuu bilaabay inuu fikiro inuu arrinta rogrogo inuu eego iimaankiisii baa daciifay iimaankiisii ayaa daciifay ma ilaahay ayuu ka tegi oo shaytaan buu raaci ma iimaankiisan ayuu ka tegi oo gaalnimo ka dooran ma aakhiro ayuu iloobi oo adduunkan gaaban ayuu dooran naftiisii baa daciiftay iimaankiisii baa daciifay maal ayuu doortay oo adduunkiisii diintiisii ku iibsaday adduun ayuu aakhiro ku beddeshay gaalnimo ayuu ka doortay iimaankiisii ayuha alaxibba ibtilaaha ugu daran imtixaanka ugu daran waa iimaankaaga oo ilaahay uu ku sejiyo waxaa ugu weyn nicmad ugu weyni waa nicmat اliimaan waa nicmat اlislaam waa nicmat اlqur'aan taa wax ka fiicani ma jiro laakiin imtixaanka ugu daran
ibtilaaha ugu daran waa maalinka aad gaalnimada dooratida islaamka aad ka tagtid, waa maalinkaad iimaan weydid aad gaalnimo iyo shirki ku dhacday, maalinkaasaa ugu daran. allahuma habbitna cala aliimaan, allahuma habbitna cala alislaam. way fitneeyeen, diintiisii bay ka fidneeyeen. kadib wuxuu yidhi waan habaartamayaa, habaar baan doortay. uu dhaqaaqay dhinaca iyo boortii nebi muuse agtiisa ahayd ayuu koray. wuxuu doonayaa inuu habaaro nebi muuse iyo dadka mu'miniinta ee raacay. ilaahay carabkiisii buu beddelay. markuu yidhaahdo nebi muuse habaar wuu u duceeyaa, markuu yidhaahdo kancaaniyiinta u ducee wuu habaaraa. arrintii baa isrogtay. waxay ku yidhaahdeen war maxaa ku helay? miyaad waalatay? inaadna habaaraysid miyaad arkayn? ood muuse iyo asxaabtiisiina u ducaynaysid. waxa uu yidhi wallaahi ma garanayo, carabkanna anigu ma hayo, ilaahay baan rogaya. laa amliku hayra dalik, arrinta arrin aan ahayn anigu ma hayo. arrintanna iraadadeyda way ka baxsan tahay, doonisteeda way ka baxsan tahay. maxaan samaynaa bay yidhaahdeen. haddaba dhulkii baa la qaadan, waddankii baa la qadi, wax walbaa la waayi, waanu kala tegi, waanu baabi'i, maxaa yeella noo fikirninyo. wuxuu yidhi balcaam binu baacuura oo hadlaya, lam yabqa ila almakru waalxiila. wax hadhay male, anu khalaas diinkaygii waan waayey. laqad daacat mini alaakhira bihada asaniic, ficilkan aan sameeyey aakhiraan ku waayey, diintaydii waan waayey. arrin baa ii hadhay khalaas. arrintaasi waa maxay? inaan makri la nimaadno iyo xiilad, siyaasad inaan la nimaadno, inaan shitaarad la nimaadno, inaan dhinac kale ka nimaadno. waa dhinacee? dhinaca macaasida. dhinaca macaasida inaan dhexdooda aan macaasi iyo xumaan aan ku faafinno. xumaantu hadday ku faafto, zinadu dhexdooda ay ku faafto, macaasida ay ku dhacaan, ilaahay u nusrayni maayo. malaa'igtu way ka tegi, dhexdooda balaayo ayaa ku soo degi. liannahu maa nazala balaa'un ilaa bidambi, bala ma soo degto ilaa dembi bay la soo degtaa. marka sida awgeed baladan iyo imtixaankan iyo waxan si ay ugu soo degto waa inaan dhexdooda macaasi aan ku faafinno. sida awgeed ilaahay u kaalmayni maayo. marka ilaahay u kaalmayni maayo, malaa'igtuna way ka tegi, wax u kaalmaynaya ma jiro. ninkii shalay wanaagga dadka amrayey, xumaanta ka reebayey, macsiba ku dhacay, gaalnima ku dhacay, dhinaca kale uga baxay. isagii baa dadka xumaan iyo shar iyo waxaan fiicnayn amraya. waxa uu yidhi dumarkiina qurxiya, dumarkiina kancaaniyiinta dumar waaweyn oo qurqurux badan ayaa lagu yaqaanay. dumarkaasi ha iska dhigaan sidii dad wax iibinaya. reer banu israa'iil ha dhex galaan, fiyaan xumaanta iyo zinada dhexdooda, ayayna diidin ragga. ha la qaato dhexdoodu. markay xumaantaasi ku faafto ayaa waxaa dhici in ilaahay u nusrayn waayo ayaa dhici, malaa'igtuna ay ka tagto. kadib nin baa u yimid, sidii bay yeeleen. nin baa nebi muuse u yimid calayhi salaam, naag qurux badan buu wataa. markaasaa waxa uu yidhi waxaad ii odhan doontaa muusow, tani xaaraan bay kaa tahay, laakiin kuma addeecaya buu yidhi. uu kaxaystay, gurigiisuu la tegey. ilaahay daacuun ayuu dadkii ku salliday. xanuunkan daacuunka ah ayuu ilaahay ku salliday. 70,000 oo qof ayaa dhintay. nin la yidhaahdo fanxaas ibnu ciisaar ayaa arrinkii maqlay. kadibna seeftiisii buu soo qaatay iyo warankii, labadii xumaanta samaynayey ayuu dilay. uu nafta kaga qaaday. markaasaa waxa uu yidhi allaahumma haakada nafcalu biman yacsiik, ilaahow qofka ku caasiya sidaasaanu yeeli oo waanu dili. ilaahay daacuunkiibuu ka qaaday. dadkii way ladnaadeen. 70,000 oo qof baa ku dhintay. intii kale ilaahay u ka caafiyey. waxay ahayd
fitnadii ugu horeysay ee reer banu israa'iil lagu halaagay dumar ay ahayd sida awgeed nabigu waxa uu yiri fattaqullah ilaahay ka cabsada wattaqun nisaa dumarkana iska ilaaliya fa inna fitnata bani israa'iil fitnadii reer banu israa'iil lagu halaagay kaanat fi nisaa dumarka ay ahayd walaalayaal qisada cajiibka ah ayuu ilaahay inooga warramayaa subxaanahu wa tacaala ninkaa la imtixaanay ninkaasi aakhiradiisii adduunku iibsaday diintiisii adduunku iibsaday ninkaa fidnoobay ilaahay waxa uu leeyahay suuratul acraaf isaga oo kaga warramaya aayadda 157 watlu calayhim نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلهي وحا أوليه النبي الله واتل عليهم كو أخري وركي كي وركي سي كو أخري نبأ ورك وين بالي هذا النبأ إلهي وحا أوليه واتل عليهم تدك كو أخري والشيخ نبي الله نبأ الذي آتيناه آياتنا كان آيات كيجي سيني آياتنا بإلهي آيات كيجي وان كراميني وان وناجيني دعاء كأقبليني اسم الله الأعظم ما سيني علم بدن ما برني تقبا كدغني قف صالحا كدغني قف عبادة بدن أيان كدغني وحان أدارني دين تيدي فانسلخ منها وكدح بحي وحي أردن وكدح بحي فانسلخ منها وكبحي وكتغي فأتبعه الشيطان ما دبقى لمرك الراعي فكان من الغاوين كوي اللومي أيوك من نقضي هلاك سمي إلهي وحوله ولو شئنا هدي أن دونه لرفعناه بها كربا وقاد لهينو مقعبا إيالي لهينو عالم وين بقي عيسى جرسي لهين ولكنه أخلد إلى الأرض لكن قلكو اسكو دشي قلك أيو دورتي قرحذا أدونك أيو دورتي واتبع هواه هودي سيب الراعي وحي نفتي سو أي دونيسي أيو الراعي إلهي مثل حبه كنت المامية والعياذ بالله إلهي وحوله فمثله كمثل الكلب كاسيت ساله سو وأي أوكله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أي هدد إريديد ودإريتيد عرب كل الله دين أو تتركه أما أتكد يسيد يلهث عرب كل الله دين أما وحشاق ويسميه سيدا أي قاس أوكله أما إريو أما هإريين أما هقا جودو أما هدرق سنادو عرب كأيو لولا يامر وضع ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا كو آياتها يقوم كبيني الساس لديك ما بإلهي فقصص القصص ورنكا أقورهم قصص كاس لعلهم وحي مذيهين يتفكرون إن فكران آيات كاسي وحي إن ليين فكرة قف كاسي الدين تسيبو إيبي عقيدة تسيبو إيبي عقلي يسيبو إيبي دمير كيسيبو إيبي وحي إيبي مستقبل كيسي وناكسان آخر أيو إيبي دين تيسي الدون بكو دورتي مالي مير الدون ير أوفانية أو تغيى أيكو دورتي أحبتي في الله مثل حنويان وتصالح ننكا شيخ عالمك إنو دين تيسي إيبيو إنو إلهي كبان شيغو إنو الدون ير دورتو أو قرح ديدي إيو للدلال كيغا إنو دورتو إنو ننكي داعيغا أها شالي تولي مانتنا داعي إلى الضلالة حمانتا ذاتك أويارو وأرن آدي آدو فرحن إلهي مروحة وكت المامي كالكل أي بكت المامي مركا مثل الذين حملوا التوراة حمار بو إلهي مركانا كت المامي ذاتك مركا إسعايا وحان كلبي أيقا يو وحان دميركا أي يسير هدان وشيء حن إلسكو آيو ولا ليال ابتلاها أقويني وإيمانك أقول لك ابتليه امتحانك أقويني وامتحانك الدين تهذا لك قليل سيدا أوجد قفك وإنه مبدئيسا هيستو وإنه إلهي إن بدن أبريو إنه إلهي مبدأ إيا الدين تكسوغو وكدنتو فتنة إن لقد ديكتونا دو مرولبا وفتنة النساء دمرك إن لقد ديكتونا دو شركة دمرك اللي قد ديكتونا دو
waa in ma aragtay dumarka loo xijaabo. dumarka waxbay fidnayn karaan, nacam, dumarku way wanaagsan yihiin, dumarka khayr badan buu Ilaahay ku sugay. dumarku waa kuwa ragga dhalay, waa kuwa ambiyada dhalay, waa kuwa hooyadeen iyo walaasheen iyo dumarku khayr badan ayaa ku jira. laakiin haddii la doono in ragga lagu fidneeyo, si fudud ayaa loogu fidnayn karaa. sida awgeed waa in dumarka loo xijaabo, waa in diinta la baro. axibbatii fillaah, waxaa loo baahan yahay inaan diinteena ku faanno, inaan iska ilaalinno, inaan Ilaahay macaasidiisa aan ku dhacno. haddaan ku dhacnana waa inaan toobad keenno. mar walbana waa inaan iimaankeena iyo diinteena iyo caqiidadeena aan ku dadaalno. taasaa guula, taasaa khayra, taasaa wanaaga, taas weeyaan tayna badbaadinaysa adduun iyo aakhiro. xalaqa kale ayaa jirta oo inagu soo socota oo qisaska aan kaga warramayno, qisasun fi lqur'aani alkariim. la socod wanaagsan. wajazaakum allahu khayran. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.